nin reer mudug ah oo 8 caruur dhalay ayaa wuxuu la dardaarmay 8diisa wiil wuxuuna ku yiri wiilashaydiyow aniga hanti fiican idima haayee lacala haddaan dhinto meel heblaayo god ku yaala intaad tagtaan soo qufa ee wixii aad ka dhex heshaan qaybsada muddo ka bacdi odaygii ayaa fargaday ama odaygii ayaa dhintay wiilashii way baxeen godkii ayay tageen say u qodayeen godka wuxuu ahaa god dheer say u qodayeen wiilashii waxay isleeyihiin odayga wuxuu hanti adduunka ku tacbaayo dhan intuu geliyay kadibna wiilashii say u qodayeen waxaa ugu soo baxday dhalo oo ku jirto dhaladan waxaa ku jiro warqad dhaladii ay la soo baxeen warqadii ay kala soo baxeen way akhriyeen warqadda maxaa ku qoran mataqaanaa rag baa ilaahay idinka dhigaya shaqaysta